musabixi waxaan ku weydiiyey maxaadna weydiinde badan aad bixisay aad tiri waxaan siiyey Ethiopia u saxeexay adigu maxaad ka faa'iideysaa ama shacabka reer Somaliland maxay ka faa'iideyaan Ethiopia waan garanaynaa oo maxaa la yiraahdaa weligeedba dal bay raadinaysay bad bay raadinaysay biyo raadinaysay saldhig bay ka samaysatay way ku fiday qabsatay dalkii adigu iyo shacabku maxaad ka faa'iideysaa maxay ka faa'iideysaa dee aqoonsi Somaliland maanta ma wax aqoonsi ka weyn oo ka muhiimsan oo ay raadinaysaa jirta maxaad horta doqon iskaga dhigtaa wariyahaagan madax xun aqoonsi uu ku leeyahay maxay war aqoonsi Ethiopia maxay kugu dhaantaa adaa ka dal fiican adaa ka diin fiican adaa ka dad fiican Soomaali baa tahay oo maxaan ku yiraahdaa adaa si walba uga sharaf badane Ethiopia aqoonsi ay ku aqoonsatay maxaa ka faa'iideysaa maxay kugu dhaantaa horta ma run baan doonaysaa mise been may run baan doonaya Ethiopia inaysan waxba igu dhaamin waxana inagu dhaamin waan ogahay aqoonsi ay tiraahdo xitaa waan ku aqoonsanay ma baana aqoonsan karto dunida oo dhan baa qabsanaysaba war ma garat inaad yaro arrinta aan u sameeyay arrinkaas waa hal shay nimanka Soomaaliya arada iga haysta iyo ciilkaan u qabo darteed u sameeyay adna waxaad ka hadlaysaa wanimad waaranta Soomaali nacayb dheh adahaayo Soomaali nacayb idhigeyso Soomaali islaysay oo qabiil ba isku liistay oo waxaan ku kowba iska dhigtay haddana shaahay wada cabtaa waa walaale adigu cuqdadan baaso aad qabto maxay tahay aan weliga ka hareer maxay tahay nimanka anu cuqdada iyo carada aan nimanka u qabo weligeed mid dhamaanaysa ma 20 kilomitir baad ka hadlaysaa reer shacabka Somaliland ba igu kacay Somaliland oo dhan waan siin lahaa waa ku biiri lahaa iyagana waa ku biiri lahayn Soomaaliya horta ma ka xanaajinaya ya haddaan ba guul taagana mar haddaan Soomaali meel ay joogtaba wow wanimad waaranta waan gartay maxaa ka jira in Ethiopia intee ku yeertay ay ku tiri ana hubban ku siinaya aad ku dagaalanto adna dalka qayb isi heshiisku inuu sida ahaa balka war maxaa ka jira dee waa caadi $2 darisa weligeeda hu kale siin jiro li caawin jiray oo dee waa maxaad ka hadlaysaa waa caadi marka ma adoo cimriga adoo maanta taagan ba Ethiopia intee ku yeertay waxay ka dhaadhicis hubna aan ku dhiibo wiilashiina ha ku dhamaadeen isku dhameeya dalkana aan qaato ma intaas laga dhaadhiciyay adoo inta la ego maanta cimriga taagan dee waa caadi ha ka hadlaysaa $2 darisa weligeeda hu kale siin jiray oo la isku gumaadi jiray had ka hadlaysaa gacantaan ka gelin lahaade qodhay iyo xerada iyo niyo laakiin haayo cuqdada inta la eg maxay tahay Soomaali waa islaysay oo maxaan ku yiraahdaa iyo kow iska dhigtay oo meel walba dunida oo dhan ba islaysay haddana shaahay wada cabaan waa walaale adiga cuqdada inta aad laysay oo masaakiin alaysay ba inta ka darane heedade maxaa adiga cuqdada inta la eego ku haysata maxay tahay niyo adiga ruuxa inta iska diis anu cuqdada iyo ciilka iyo saan u nibcahay Soomaali saan u nibcahay hadaa dhinto qabriga ka soo dagaalami karo xitaa waa ka soo dagaalami lahaa niyo had ka sheegeen horta kuma suurtagelayso Somaliland inta joogta kaliya ayaan ku ogolaanay warada ma garatay waxa iska daaya ana tala ku haya Soomaali oo dhan baynu heshiisiinayna wala Djibouti wala ka geeska kala jooga waa heshiinayna Ethiopia waa iska celinayna soo diyaar meel khaldan buu waraysigu kula galay wadan markaas halka hadii gaarto kula wadi maayo iska wadaadu horta ka horta madaxweyne horta iga xanaaqine madaxweyne waa iga xanaaqay muuse midnimo markii laga hadlo oo leeyahay war Soomaali hamidoodana waka Ethiopia hal laga sheekeeyo iyo maxaan ku iraahdaa dalka hal la bixiyana safka horu kaga jira baladu wakaasi meelge